ganacsatada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa maanta magaalada Jowhar kulan ay isugu yimaadeen ku doortay gudoomiyaha rugta ganacsatada Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa waxaana doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle ka soo qayb galay ganacsato ka kala socotay gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo horay ugu midoobay dawlad goboleedka Hirshabeelle. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada kulanka ka soo qayb galay oo sheegay in muhiimad gaar ah ay u leedahay midowga ganacsatada Hirshabeelle inay doortaan rugta ganacsiga Hirshabeelle. maanta halkan waxaan isugu nimid inaan shaacino midowga labada gobol, midowga rugaha ganacsiga ganacsatada labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo la isku yiraahdo Hirshabeelle. xaflad ay isugu imaadeen, macnaha doorasho ay isugu imaadeen ganacsatada labada gobol. dood dheer kadib doorasho dhacday, waxa ku guuleystay gudoomiyaha Hirshabeelle mudane Xuseen Axmed Cali. waa gudoomiyaha Hirshabeelle. gudoomiye ku-xigeenada waxa ku guuleystay labada gudoomiye ee rugaha ganacsiga ee labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, Marwo Xaliime Sacdiye Cabdullaahi Fiidow iyo Sheekh Yuusuf Maxamuud Wehliye. marka waxaan leeyahay rugtan la dhisay gudoomiyaha iyo lamada gudoomiye loo sameeyay wax badan baa sugaya, maadaama meelihii ilaha dhaqaalaha ka imaanayeen ay maamulayaan. waxaa looga baahan yahay kaalinta ay ka leeyihiin inay ka qaataan. in annaga oo ah labadii gobol ee isu timid ay wax wadaagaan maamuladoodii raggoodii ganacsiga ahaa inay intay isu yimaadeen fikir isu keenaan oo ay ku midoobaan sidii ay Hirshabeellaba hore loogu midoobay. annagana maadaama aan nahay ganacsatadii labada gobol waxaan garanay in aan ka maamul ahaan maamul isu dhisno, haddana isu keensanno waxeenna oo isku darsanno ilaa adduunku wax isku darsi ku socdaaye. waxaan nahay dantii ganacsi leeyahay, ha yaraato ha badnaato. qofka ganacsiga hoo dhibanaha, qofka ganacsiga hoo markaas asagu wax dulmaayo, intaba inaan danahooda u istaagno. Xuseen Axmed Cali gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle ee maanta la doortay ayaa sheegay in shaqooyin hor yaalaan mas'uuliyiinta maanta la doortay ee rugta ganacsiga Hirshabeelle. waxaa la yiraahdaa nin xil qaada eed qaad, waxaad noo dhiibteen mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyad culus. haddii aan nahay reer ganacsatada Hirshabeelle waxaana laga rabaa inaan oon aniga iyo ku-xigeenada aan ku hogaami doona haddii ilaahay yidhaahdo rabitaanka danta iyo maxaan ku yidhahdaa dadka ganacsatada ah iyo masaakiinta iyo maamulkeena oon si dhow ula shaqayno. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.